waayahay shirkan golaha midooda aan iraahde golaha wadatashiga waxay kulamo la yeesheen qaybaha kala gedisan ee bulshada toddobaadkan waxaa ka mid ahaa bulshada rayidka waxaa ka mid ahaa kulamo ay la yeesheen golaha midooda musharaxiinta oo iyagu su'aalo badan ka qabay nidaamka doorashadu u socoto iyo weliba xagga amniga dhinacyo kala gedisan baa u muuda in culaysaadku ka imaanayaan ay ku aadan sidii doorashadan ay u dhici lahayd uguna dhici lahayd nidaam ama wadda laisla ogol yahay ma ku muuqataa adiga nidaamkaas inuu hirgeli karo marka loo fiiriyo fikradaha kala gedisan iyo aragtiyada kala duwan ee miiska iskugu yimid khaasatan shirkan uu hadda hogaaminaya ra'iisul wasaaraha waa mahadsantahay maxamed horta inaan soomaali waxaan malaynayaa taariikh dhow oo doorashooyin ayaan leenahay doorashadan hadda la qabanayo doorashada dadban la yiraahdo 2 jeer ayaa hore loo soo qabtay wax dhib badan ma ahayn weliba iyadoo markaas barbarad la yahay oo dowladnimadu intaan ka sii maaragtay jilcan tahay dadkuna aysan badanaa bis aqoonba ayaa wax la isla wadwaday waxaa ka dhashay maxsuul aad qanac loogu wada ahaa hadda maxaa dhacay iyadoo doorashadii qayb ka mida bilaabatay in haddana mar kaleeto waxaa meesha ma aha doorashadii in lagu heshiin laayahay iyo doorashadii aan la qaban karin iyo midna ma aha waxaanan jirin niyad wanaag ka imaanaysa madaxweynihii waqtigiisa dhammaaday oo aan u jeedin doorasho maaragtay ilaa xad si u furan oo dadka ay ka wada qayb geli karaan ayuusan uga jeedin fursaddii uu ku soo noqon lahaa marka in uu yani raggii uu meesha geystay inuu yiraahdo hala iisoo boobo oo intii yarta ahaydoo baydhabo iyo dhuusamareeb lagu qabtana ay ka markhaati tahay wax dhacay meeshaas waa meesha sarta ka quruxsan tahay wax kale oo hadda Soomaaliya ku cusubban jiraan marka ma aha waxan wax la heshiin laayahay ama maaragtay hawsha la qaban laayahay midna ma aha ninkaas odaga ahaa in yani sidii inuusan doorashada carqaladayn karin qaabkii la isu heli lahaa ayaa hadda laga wada hadlayaa oo beesha caalamku luku leedahay Soomaalida hadda meesha fadhida kulli ay ka wada hadlayaan ninkaas odaga ah sidii uusan yani awoodahan uusan u turaynin dadka iyo mas'uuliyadda loo dhiibay ayay xiran tahay moogiye doorasho ereyga doorasho la isku diidan yahay waxaan u maleynayaa waa misleading waan gartay waxaad tilmaamtay in aan wada ognahay iskana cad in qaar ka mid ah hogaamiyaasha dowlad goboleedyadu ay ku kala qaybsan yihiin aragtida guud ee amniga hadday noqon lahayd maamulada qaar waxay weli aaminsan yihiin si toosana u sheegeen inay tahay xilligii amniga doorashada iyo amniga guud ee dalka lagu wareejin lahaa ra'iisul wasaaraha halka maamulada qaarkoodna ay taageersan yihiin ama aad sidaas sheegtayba taageero ka haysta madaxweynaha si guud marka loo fiiriyo qodobka amniga ma u malaynaysa inuu noqon karo mid caqabad ku noqon kara inuu shirku miro dhalo duu yahay waa midka ugu hadda culus 4-5 maalmood la isla mari laayahay mana rabo in uu runtii maxamed cabdullaahi farmaajo arrintaas ka tanaasulo ragga meesha fadhiya afkiisii ku hadlayaan iyagu ma aha beneficiaryga xataa ma aha oo hawshaas ka faa'iidi doona iyagu shaqay hayaan way meeshii ku matalayaan marka kama tanaasulayo in laga furfuro ma ogiye nin tanaasul iyo waxaas lagu yaqaan ma aha in laga furfuro oo war cad oo ra'iisul wasaaruhu ku shaqayn karo haddii arrintaas aysan suuro gelin marka oo war cad oo ra'iisul wasaaruhu ku shaqayn karo uusan ka soo bixin shirkan oo la yiraahdo waxa la duugduugo aniga waxaan is leeyahay hawl haddana nagu soo noqon doonta oo aan dhihi doono shir kale in loo baahdo ay suuragal tahay sababtoo ah awoodihii haddii uusan haynin ma noqon karo qof dhexdhexaada oo dadkii haddii u soo dacwoodaan awoodo uu wax ku fuliyo iyo hadduu arko dhib guddiyada qaarkood maaragtay ay wadaan oo ay caddahay maaragtay hadda ku caddaatay waxyaabaha ay ka shaqaynayaan marka in la awoodeeyo waxay danta dalka iyo dadka u jirtaa ra'iisul wasaaraha in la awoodeeyo ku jirtaa
markaas ayaan maaragtay doorasho raalli laga yahay maxsuulkeeda ay soo ka iman doontaa. haddii doorashadan maxsuulkeeda raalli aan laga noqon, dabcan maxamed waa naqaanaa meeshay ku dhammaato doorasho laisku khilaafay, dalal badan ayaa ku burburay, xukun laisku dhajiyo sidoo kaleeto dalalku waa ku burburaan. meeshaas marka dadka inay khatarteedu dareemaan oo sidaan hore u socon lahayn oo ra-iisul wasaaraha loo awoodeyn lahaa xilli kooban 2 bilood maximum 3 bilood in hawshaas lasoo dhammaystiro waa la awoodaa haddii niyad wanaag iyo lala yimaado compromises.